وسلامتين maanta waxaan soo qaadan doonaa film cajiib ah oo soo baxay 2020 oo lagu magac daray The Magic Chris. Si toos ah u guda galna filmka waxa uu bilaamayaa qisa laga soo qaatay sheeko qadiimi ah. Waqti dheer ka hor, vampires-ka iyo werewolves-ka ayaa adduunka la wareegay. Xabsi argagax ku beermay bini'aadamka si kastaba ha ahaatee qarniyo ka hor ayay isu bedeleen wuxuushiin. Makhluuqaad nabadda jecel kuwaas oo aan sii faafin. argagaxa markii waqti la soo dhaafay qaar ka mid ah ayaa naftooda isku dayay in ay ku dhex noolaadaan bini'aadamka iyadoo aan la ogaan, qaar kalena ay carareen meel sir ah oo adduunka dacaladiisa ah. sheekadu waxa ay isu bedeshay waqtigan aynu joogno oo aynu ku baranay wiil da'yar oo vampire ah oo lagu magacaabo Vlad Tevez iyo aabihii waxay ku sii socdaan Crailis Felden Town kadib markii uu martiqaad gaar ah ka helay duqa magaalada. Vlad waxa uu sanadkan ugu horeeya ka bilaabi rabaa dugsiga sixirka caanka ah ee loo yaqaan Riff Raff Academy si lama filaan ah uga soo gudbeen buunto dhagax ah. nin qaloocan oo loo dhan jiray kuwaasi muddo ayaa ka soo muuqday daaqada baabuurkooda waxa uuna weydiiyey dukumentiyadooda inta aanay soo gelin goobta sixirka. muddo waardiye waxa uu ka ahaa buuntadan in ka badan 1000 sano kadib waxa uu soo qaatay buug duug ah oo akhriyay waxa sheegid ku saabsan Vlad oo loo malinayay inuu yahay badbaadiyaha Crailis Felden Town. kadib markii uu hubiyay dukumentiyadooda, odaygu waxa uu qalaaday Vlad iyo aabihii in ay galaan dhulka sixirka. magaaladu waxa uu muuqatay magaalo qadiimi ah. Vlad aabihii Barnabas ayaa ku sigtay inuu jiro wiil yar oo baaskiil wata, balse daqiiqadihii ugu dambeeyay ayuu ka istaagay. askari ayaa goobta soo gaaray si uu dhacdada u baaro. Vlad ayaa la arkayaa isagoo qoorta ku xiran tahay kristal madow oo u muuqda inuu iskiis xeelado sixir ah u sameynayo, sida koofiyadda oo uu bedelayo. si kastaba ha ahaatee, Vlad wax fikrad ah kama haysto kristalka waxqabadkeeda. Vlad iyo Barnabas waxay yimaadeen gurigooda cusbaa kaas oo u muuqda mid aan caadi ahayn. Barnabas uu la dhacay dhismayaashii hore wuxuuna qorsheynayay dayactirka guriga, balse Vlad waxa uu ka walaacsanaa dugsiga uu ku biiri doono. waqti yar kadib waxaanu aragnaa in Vlad uu seexday. Barnabas waxaa la kulmaya sarkaal cashuureed oo u yimi si uu u siiyo biilasha cashuuraha uu u baahan yahay si uu lacagta u bixiyo inta aanu degin. maalintii xigtay, Vlad ayaa imi iskuulka maalintiisii ugu horeysay ee iskuulka. albaabka laga soo galo waxa uu ku arkay koox ka kooban 3 arday si wada jira ugu yeeraya Baker Dofar oo cagajugleen ku haya ardayda cusub. mid ka mid ah ardayda cusub oo lagu magacaabo Wolf, laakiin markii wax badbaadiyay Wolf koox Elvis Fay ah iyo saaxiibadeed. dhacdada kadib, Vlad iyo Wolf waxay si degdeg ah u noqdeen saaxiibo, halka Barnabas uu imi xarunta dawladda hoose si uu uga dacwado liiska biilasha ee uu xalay helay. si kastaba ha ahaatee, marwada dawladda hoose oo lagu magacaabo Mrs. Kemeya ku wargelisay in liiska cashuuraha uu yahay mid waajib ah, qof kasta oo cusubna uu bixiyo. dhanka kale, Vlad oo la kulmay ilaaliyaha iskuulka oo lagu magacaabo Hannibal oo u muuqda inuu garanayo aqoonsigiisa ayaa ku booriyay in aanu ka maqnaan xafladda furitaanka maalintiisii ugu horeysay. waxa uu soo galay hoolka dugsiga oo ay ka socoto xafladdii furitaanku. nambarka 7, Barnabas waxa uu la kulmay maayarka magaalada kaas oo ka doonaya inuu ka iibsado kristalka oo ka tirsan qoyska Tevez oo haddana xiran yahay Vlad. duqa ayaa u soo jeediyay in uu iibin karo alaabta qoyska si uu u bixiyo lacagta cashuurta ee dugsiga. maamulaha ayaa ardayda cusub ee sanadka mid ugu yeertay. Barnabas waxa uu iskuulka soo daawado wiilkiisa. maamulaha ayaa waxay isticmaalaysaa buuggeeda sixirka si ay qof kastaba muuqaalkiisa dhabta u soo saarto ee uu dhaxalka u leeyahay. tani waxay keenaysaa Wolf inuu noqdo Yey, Fayna inay noqoto Cifriid, Vladna inuu noqdo vampire. si kastaba ha ahaatee, Fay waxay lumisay xakamaynta dawlimaadkeeda waxa ay ku dhacday Vlad, taasoo keentay inuu Vlad uma tago. si kastaba ha ahaatee, waxaa la ogaaday dhagorta Yeyga inuu xasaasiyad ku qabo vampiresku. waxaynu aragnaa 3 carruur ee sixirka oo jiifa sirrahooda kuwaas oo dareemaya xanuuno. Mrs. Kemeya oo isku dayaysa inay xato dhagaxa kristalka ah waxay soo gelisaa guriga Vlad gacanteeda waxaana ay qaadanaysaa dhagaxa kristalka, balse markii uu geyso dhagaxa kristalka oo uu gacantiisa saaro, dhagaxa kristalka si sixir ayuu baaba'ayaa waxaana ku noqonayaa meeshiisii ee qolka Vlad.
duqa waxa uu daha ka qaadayaa inuu dhagaxa sixir ilaalinayo oo la heli karo oo kaliya haddii uu mulkiiluhu gacantiisa kusoo wareejiyo. 3 ciyaaryahan oo ku maasanaya ciyaalka kale ayaa nin ku daboolay dhiig been abuur ah, taasoo Falaad ku sababtay inuu matago iyo Fay oo muuqaalkeeda ku faafay iskuulka oo dhan. Falaad waxa uu go'aansanaya inuu iskaga tago magaaladan oo dhan. isagoo ku sii socda keynta ayuu waxa uu la kulmayaa Fay iyo Wolf. waxaynu aragnaa wax dahsoon aan magaciisa garanayn oo ilaalinaya 3 carruur. 3 carruur waxa ay la kulmayaan waardiyaha Quasimodo. Quasimodo oo diiday in ay baxaan ilaa ay ku oofiyaan wax sii sheegid badbaadista Felden Town iyo liista shaydaanka weyn. markii ay kooxdu ku adkaystay inay baxaan, Quasimodo waxa uu iska dhigay wax aad u weyn isagoo isku dayay inuu dilo ayaa waxa kasoo badbaadinaya Master Hannibal waxa uu carruurta kale gurigiisa waxaana uu soo muujiyay inuu yahay saaxir ka mid ah buugga faashida ee Liber Sisantia. waxaana uu sheegay in lagu ilaaliyo buugga maktabadda dugsiga sixirka si ay u soo furaan wax sii sheegidda. marka ay soo laabanayaan 3 carruur waxay isu baranayaan mid iyagoo ka sheekaysanaya noloshooda. markay si wacan isu bartaan waxay tegayaan dugsiga si ay u soo qaadaan buugga sixirka. albaabka ayay ka soo galeen maktabadda. waxaa ilaalinaya hundi madow oo indho cas leh. waxa uu ka jeediyay hundiga halka Fay iyo Falaad ay soo qaadayaan buugga. Falaad waxa uu isticmaalayaa farsamadiisa fiidmaarta si uu u helo albaabka qarsoon. Mrs. Sukmiya waxay sun jacayl ku buufinaysaa Barnabas. Mrs. Sukmiya Barnabas waxa uu sheegaysaa inuu ku qanciyo wiilkiisa Falaad inuu iska gado kristalka. Barnabas waxa uu sheegayaa in wiilkiisa Falaad la waayay. Fay waxay isticmaalaysaa baalalkeeda si ay u soo qabato buugga iyadoo indhaha isku haysa ay soo qabanaysaa. marka ay buugga soo qaataan, ciyaalku si degdeg ah ayay meesha uga baxayaan. duqa magaalada iyo Mrs. Sukmiya ayaa waxay ogaanayaan halka ay joogaan. waxay la sii yaabayaan markay arkaan inay heleen buuggii foosha xumaa. buugga aqoontiisa ayay ciyaalku akhrisanayaan waxaanay ku baranayaan Lord Lucifer oo ah midka ugu xun dantiisa kaliya ay tahay inuu dib u soo celiyo waqtiga si uu vampires-ka iyo wolves-ka ay u noqdaan kuwa shar badan. si kastaba haatee saddexdoodu ma awoodaan inay wax sii sheegista sii wadaan maadaama buugga laga jaray. dhanka kale, Mrs. Sukmiya ayaa habaarkii rogaal celiska ka hashata shilfigeeda. Mrs. Sukmiya ayaa sixirkeeda adeegsanaysa si ay hadalkooda u bedesho Wolf iyo Falaad iyo Fay. Falaad markuu dhaho sheeg, hadalkiisu waa isbedelayaa, wax kale ayuu ka hadlayaa. Barnabas waxa uu Falaad ku boorinayaa inuu iibiyo kristalka. Falaad wuu diiday inuu iibiyo kristalka waxaana wargeliyay labadii kale. kooxdani waxay go'aansadeen in naftooda u bartaan arrinta Lucifer. habeen dambe waxaa aragnaa Falaad oo akhrinaya buugga aqoonta oo dhan si uu ugu helo inta xoga suurtagal ah. isla markiiba wuu seexday. maalintii xigtay markay soo toosay, Falaad ay kooxdii dib u midoobeen. mid kastoo iyaga ka mid waxa uu soo bandhigay wax qiimo leh oo ay ogaadeen kristal loo yaqaan jajabka dhiigga inuu soo celin karo waqtiga oo yaala dowladda hoose. Falaad iyo kooxdiisi waxay tegeen dowladda hoose. si kastaba haatee waxaa celiyay askarigii. Falaad waxa uu awoodaa inuu kaamiradaha dhaafo isagoo awoodiisa vampire-nimada isticmaalaya. gudaha waxaan ku aragnaa Falaad kristalkii mugdiga oo iftiimaya oo Falaad hogaaminaya. Falaad wuxuu galayaa qol wada kristalkii dhex yaala kristalkii mugdiga oo iftiimaya. waxaan ogaanayaa in uu yahay qayb ka mid ah kristalka oo qayb muhiim u ah. wuuna ka soo cararayaa si aanay wax khaldan u dhicin. Barsaabka iyo Mrs. Sukmiya waxay dareemayaan joogitaanka jajabka dhiigga. Mrs. Sukmiya waxa ay hubinaysaa duqa magaalada waxaana daha ka qaadaysaa inuu ururinayay kun sano ka badan inuu ururinayay kristalka madowga. kooxdu waxay ogaanaysaa kristalku inuu wax noocyadii hore u bedeli karo ee la soo dhaafay. tani waxay keentay inay shandada Falaad isu bedesho shandad duuga. xitaa buugga aqoonta waxa uu noqday mid cusub si la mid ah sidii hore u jiray. ugu dambeyntii 3 qof waxay wax sii sheegidii akhriyaan. waxay ogaadeen duqa magaalada inuu yahay Lucifer. maalinta qorax madoobaadka ay maanta tahay, wuxuu awood doonaa inuu iftiinka mugdiga ku dhex tuuro qof walba. duqa magaalada iyo Mrs. Sukmiya waxay ogaanayaan inay ku soo jiraan wadada buundada. Quasimodo waxa uu sheegay hadduu mar ka baxo inaan mar labaad ku soo noqon karin.
lucifer ayaa meesha imanaya waxaanu qabsanayaa fay taasoo ikhtiyaar kale aanu furnayn inuu dib ugu laabto qalcadda si ay u soo badbaadiyaan saaxiibtood fay. duqa magaalada ugu hanjabay Falaad hadduu siin waayo dhagaxa kristalka in uu dili doono fay. Falaad oo aan ka fikirin ayaa siiyey si ikhtiyaar ayuu ku bixiyey. qorax madoobaadka ayaa dhacay. Barnabas oo ogaaday qorshaha duqa magaalada oo ka hor imaaday. duqa magaalada waxa uu ku guuleystay inuu sukeeno dhammaan kristalka madow. hareeraha taawarkoo dhanna waa iftiimayaan marka ay gaadho saacadu 13. Master Hannibal wuxuu taawarka ku wareejiyey sixir, taasna waxaa ka cadhooday Lucifer. waxa uu ciyaalkii mid u soo weeraray. Wolf wuxuu noqday aad u xoog weyn oo aad u cadho badan, waxaanu dhulka ka jaray Lucifer. Barnabasna waxaa u suurta gashay inuu ka adkaado Mesomakia oo la dagaalamay. Falaad waa uu soo kacay, waxaanu noqday vampire aad u dheereynaya. Lucifer waxa uu ku dhintay shucaaci uu soo riday oo dib ugu laba noqday. halkii ayuuna ku dhintay, halkii ay ciyaalkuna ku badbaadeen.